xulka qaranka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyagoo gaaray dalka aynu deriskan ahnay ee Djibouti halkaas ay ku ciyaari doonaan kulan ka tirsan tartanka Chan Cup. Ocean Stars ayaa muddooyinka ugu dambeeyay diyaargarow adag ka waday garoonka farsamada xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee jaamacadaha iyadoo xiriirka kubadda cagtana sanadkan ay xoog saareen sidoo xulka guulo ugu soo hoyi lahaa sanadkan tartanka uu ka qayb galayo iyagoo u keenay macallin ka soo jeeda dalka Ghana ka lagu magacaabo Bashir Hayford. Ka hor intaysan ciyaarin kulanka ugu horeeyay tartanka Chan Cup oo ay la bilaaseen dalka Uganda waxay caawa la ciyaari doonaan kulan saaxiibtinimo oo istijaabin ah dhigooda Djibouti iyadoo la xasuusto in kulanka ugu dambeeyay xulka Soomaaliya ku soo adkaaday 4 gool iyo 1 gool ciyaar ka dhacday dalka Djibouti. caadiyan waxaa tartanka Chan Cup ciyaara xidigaha kubadda cagta ee ka dheela horyaalada dalkooda. Kulanka ugu horeeyay wuxuu ka dhici doonaa dalka Djibouti sidoo qorshe uu yahay 27 bishan halkaas oo guri ahaan ugu ciyaari doono xulka Ocean Stars. ciyaaryahan Faisal Ahmed ayaa la xasuustaa inuu 3 ka dhaliyay dalka Djibouti xilli uu caawa markale ka hortagi doona dalka Djibouti. si kastaba haatee xulka qaranka Soomaaliya sanadkan waxay u muuqdaan kuwa laga fili karo inay natiijo wax ku ool ah ka soo hoyaan tartankan Chan Cup maadaama ay diyaargarow adag u galeen isla markaana xulka kabtan loogu dhiibay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Cabdicaziz Maxamed Catoosh.